dunida maanta kuma tartamayso qof haysta shaqo kaliya, waxay la tartamaysaa qofka haysta faham, xirfad iyo xog. Xirfadaha dijitaalka ah ayaa noqday furaha ugu weyn ee mustaqbalka dhaqaale, gaar ahaan marka laga hadlayo suuqyada maaliyadeed iyo ganacsiga casriga ah. Ku soo dhawaada Shirwac Capital oo ku takhasusay warbixin, falanqayn iyo wacyigelin ku saabsan crypto, forex iyo ganacsiga dijitaalka ah. Muuqaalkan waxaa si cad oo la fahmi karo ugu sharxi doonaa xirfadaha dijitaalka ah ee la xiriira suuqyada maaliyadeed iyo sida qof walba uu uga faa'iideysan karo. qodobkeena koowaad waa maxay digital skills? Digital skills kuma aha kaliya inaad isticmaasho computer ama mobile. Xirfad digital ah waa awoodda u leedahay inaad fahamto xogta, inaad kala saarto runta iyo buunbuuninta. Dunida maanta xogtu way badan tahay, laakiin xirfaddu waxay tahay inaad xogtaas ka soo saarto macno iyo jihayn sax ah. qofka leh xirfad digital ah ma raaco warar kasta, wuxuu fahmaa waxa ka dambeeya. qodobkeena labaad, crypto. faham ka hor maalgashi. Crypto waa mid ka mid ah suuqyada ugu adag isla markaana ugu fursadaha badan, laakiin suuqan laguma galo xamaasad ama rajo degdeg ah. xirfadaha muhiimka ah ee crypto waxaa ka mid ah: blockchain. qofka raba inuu fahmo crypto waa inuu ogaadaa sida transactionku u shaqeeyo, maxaa ka dhigaya network ammaan ah, sababta maamul dejinta ay muhiim u tahay. markaad fahanto aasaaska blockchain-ka ayaad fahmi kartaa qiimaha mashruuc kasta. akhrinta wararka crypto. qiimaha crypto wuxuu si weyn ugu xidhan yahay sharciyada dowladaha, go'aanada shirkadaha waaweyn iyo isbedelada tiknoolajiyadda. xirfadda dhabta ahi waa inaad kala saarto warka saamaynta leh iyo warka aan saamaynta lahayn. fahamka khatarta. crypto waa suuq isbedel badan. qofka xirfaddan leh wuxuu yaqaanaa goorta uu galo, goorta uu ka fogaado, goorta uu feejignaado. tani waa xirfad ka muhiimsan faa'iido degdeg ah. qodobkeena saddexaad, forex. akhrinta dhaqaalaha caalamka. forex waa suuq ay maraan lacagaha dunida oo dhan, wuxuuna ka turjumayaa xaaladda dhaqaale ee dal kasta. forex ma aha kaliya charts iyo lines, waa faham dhaqaale. xirfadaha muhiimka ah ee forex waxaa ka mid ah: siyaasadda lacagaha. bangiyada dhexe sida Federal Reserve, ECB iyo Bank of England go'aanadoodu waxay si toos ah u saameeyaan qiimaha lacagaha. falanqayn dhaqaale. xogta sida shaqo la'aanta, sicir bararka iyo GDP waxay bedelaan jihada suuqa forex. qofka fahmaya xogta wuxuu akhriyaa suuqa ka hor inta uusan gelin trade. anshax iyo samir. forex wuxuu ku barayaa inaad sugto, inaad qorshe raacdo, inaad aqbasho khasaare. tani waa xirfad nololeed oo ka baxsan tradingka laftigiisa. qodobkeena afraad, content creation iyo blogging. xogta oo qiimo yeelata. mid ka mid ah xirfadaha ugu muhiimsan maanta waa inaad xog adag u beddesho faham fudud. content creation ma aha kaliya posting, waa sharaxaad, falanqayn, wacyigelin mas'uuliyad leh. faa'iidada blogging: qoraal wanaagsan wuxuu yareeyaa jahawareerka, wuxuu dhisaa kalsooni, wuxuu dadka siiyaa faham saxa. Shirwac Capital waxay diiradda saartaa in xogta suuqyada lasoo bandhigo si cad oo daahfuran, sidoo kale mas'uuliyad leh. haddaba su-aashu waa maxay xirfadahan muhiim ugu yihiin mustaqbalka? suuqyada maaliyadeed way isbedelayaan, shaqooyin badan way dabar go'ayaan, laakiin qofka leh faham suuq, xirfad digital ah, awood falanqayn, wuxuu awoodaa inuu la jaanqaado mustaqbalka oo uusan ka biqin isbedelka. haddii aad rabto inaad fahamto crypto, inaad barato forex, inaad la socoto ganacsiga casriga ah, ku xirnow Shirwac Capital. raac boggan si aad ula socoto warbixin, falanqayn ku salaysan aqoon.